بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبشار عبد السلام محمد caawa waxaanu rabnaa ardayda halka inaynu kusoo koobno ama wax yar aynu introduction yar hordhac iska siino chapter ka mid ah chapterada fasalka 8aad ee maadada xisaab dugsiga dhexe chapterka sidaad ka aragtaan ciwaanka waa trigonometry marka haddaad fiirisaan imtixaanaadkii sanadii u dambeeyay inta badan waxaad arkaysaa inay yihiin su'aalo ay kaga soo laalaabtaan dhowrkii sano u dambeysay maadaama uu yahay chapterada syllabus-ka gadaal lagaga soo daray waayahay haddii markaan hore u galno chapterkan trigonometry marka aynu leenahay waxaanu ka qaadanaa wax yar hordhac kooban baynu kaga qaadan doonaa fasalka 8aad halka aynu muhiimadiisa ugu tagi doono fasalada form 2 iyo form 4 haddii lahaydno waayahay marka haddaynu summary aynu soo koobno dawaa trigonometry marka aynu leenahay derived from waxa laga keenay two Greek words baa laga keenay laba eray oo Greek words ayaa laga keenay trigonon meaning waxa weeye triangle weeye metron waa maxay meaning measurement in wax la cabiro sadaraad waxaan ogaanaynaa triangle iyo measurement waa meesha taala saddex xagal iyo cabiraad sadaraad waxaanu dhahaynaa trigonometry marka aynu ka hadlayno waxaanu leenahay hordhacan aynu qaadanayno waa xiriirka ka dhaxeeya right angle triangle-ka iyo sideskiisa iyo angleskiisa xiriirka dhaxeeya baynu ku soo koobaynaa sadaraad sideska waa la cabirayaa ama waxa weeye angle baa la raadinaya qiimihiisa waayahay in trigonometry markaynu ka hadlayno marka Greek letters are used ayaa la isticmaalaa to indicate si loogu muujiyo ama loogu qaato in a general way the size of various angles xaglaha kala duwan ama xagla kala duwan si ay ugu taagnaadaan waxa la qaataa inta badan Greek letters baa la isticmaalaa xarfaha la isticmaalaa ama symbols xarfaha aynu qaadan karna maxaa kamid alpha kamid ah theta kamid ah beta kamid ah iyo gamma iyo kuwa kale any letter baynu qaadan karnaa waxaynu qaadan karnaa x baynu qaadan karnaa y baan qaadan karnaa z baan qaadan karnaa a baan qaadan karnaa b baan qaadan karnaa any alphabetical letter baynu qaadan karnaa oo aynu u adeegsan karnaa wax kale yaraado inay noogu taagnaadaan xaglaha waayahay naming marka waxaynu magacaabaynaa sides of right angle triangle dhinacyada saddex xagal quman baynu magacaabaynaa with reference of angle inagoo xagasha tixraac xagal ka dhiganayna mar walba waayahay haddaynu soo qaadano marka right angle triangle saddex xagal quman baynu haysanahay waxaynu qaadanay angle-kan baa maanta wuxuu inoo yahay reference xagasha gudaha mar walba baa reference inoo ah xagashaas dhinaca ka soo horjeeda waxaa loo yaqaanaa opposite line-kan dheer mar walba sida aynu kusoo arnay Pythagoras theorem-ka waa shakaalkii halkan opposite marka hadday noqoto horjeedkii halkaana waa adjacent deris baa la yiraahdaa line-kan dheerna waa maxay waa hypotenuse-kii waa shakaal saa daraaddeed saddexda dhinac ee right angle triangle with reference of angle ama theta inagoo xagasha qaadanayna reference ka dhiganayna sidaas aynu u magacaabayna hypotenuse-ku marka asagu waa dhinaca dheer ama shakaalka isma bedelo no change kan haddaa fiirisan sawirkan kale waxaynu haysanaa xagashi waatan theta xagaanay noqotay maanta maxaa isbedelay marka opposite-kii adjacent-kii baa isbedelay sida aynu kan kusoo aragnay oo opposite-ka xagee noqday meesha xagashi ka soo horjeeda waayahay adjacent-giina waa kan waa deriskii hypotenuse-kuna waa dhinaca ka soo horjeeda mar walba xagasha 90-ka ah ka soo horjeeda oo right angle-ka ka soo horjeeda oo hypotenuse isma bedelo wey waayahay trigonometry ratios of sine cosine and tangent baynu soo qaadanayna sine-ka waxaynu dhahaynaa marka haddaynu soo koobno waxaynu ku helaynaa opposite-ka horjeedka oo loo qaybiyey hypotenuse-ka shakaalka loo qaybiyey waayahay cosine-ka maxaan ku helaynaa asaga waxaynu ku helaynaa adjacent-ga deriska oo loo qaybiyey hypotenuse-ka shakaalka loo qaybiyey waayahay tangent-ga ama tanka waxaynu ku helaynaa opposite-ka oo loo qaybiyey waxa kan la yiraahdo opposite-ka oo loo qaybiyey adjacent-ga loo qaybiyey ama opposite-ka oo loo qaybiyey adjacent hadba kii aynu qaadano waayahay inta haddaynu ku gudubno waxaanu wax yar aynu ka soo qaarabnaa marka inuu tusaalaha koobaad example koobaad name waxaad magacawdaa hypotenuse shakaalka adjacent deriska and opposite iyo horjeedka baad magacaabaysaa shaxmada waayahay haddaynu fiirino marka shaxanka koobaad waxaynu haysanaa angle theta baynu haysanaa dhinacan ka soo jeedo mar walba maxaynu leenahay waa opposite-ka wey waa soo gaabinaynaa waayahay dhinacaana muxuu ahaa adjacent waa deriskii wey halkaana maxaan dhahaynaa waa hypotenuse-ka waa soo gaabinaynaa simple waayahay maanta haddaynu fiirino right angle triangle dhinacaan xagash 90-ka ka soo jeedo mar walba asagu waa hypotenuse-kii no change isma bedelo maxaan dhahaynaa meesha ka soo horjeeda halkaana waa opposite-kii wey opposite-kii halkaan maxay noqotay marka adjacent bay noqotay waayahay kan handaa fiirisid mar walba asaguna halkaan waa maxay waa hypotenuse-kii wey halkaan no change isma bedelo wey hypotenuse-kii waayahay xagashi maanta waa tan halkaana waxay noo tahay opposite noqotay tanna waa maxay waa adjacent-kii waa deriskii waayahay kan haddaynu fiirino xagasheena maanta waa tan hypotenuse-kii mar walba asagu waa kan wey no change wey waayahay xagashi meesha ka soo jeedaana waa maxay waa opposite-kii wey halkaana maxaan dhahaynaa adjacent-kii wey intaasaynu magacaabo
waxaynu awood u leenahay marka hadda arday oo aynu samayn karnaa inaynu magacaawno hypotenuse-ka shakaalka adjacent-ga and opposite-ka inaynu magacaawno mar walba waxa maskaxda ku haysaa marka opposite-ka iyo adjacent-gu waxay ku xiran yihiin the position of the angle ee labadan dhinac angle-ku meesha u dhacayo labada xaglood midka u dhacay angle ku dhacay haddaynu halkan angle ka dhigno opposite-ki waa kan hadduu angle halkan yahay opposite-ki waa kan maxaa dhacay marka angle-ka marka halkan tago kana opposite noqonay kana adjacent-gu noqonay sidaas isu bedelayaan sida aad ka aragtaan tusaalayaasha kooban waayahay su'aalaha marka lagu weydiin karo imtixaanka maxaa kamid ah find the values waxaad heshaa ama qordhaa qiimayaasha sinka iyo coska iyo tanka ee shaxankan qiimayaashana lagu sii maxaynu dhahaynaa marka aynu qorayno marka waxaynu oran karnaa waxa kaliya waxaynu soo aragnay saddexda dhinac ee right angle triangle-ka saddex angle-ka with reference angle annagu xagasha tixraac ka dhigayno xagasha mar walba angle-ka adeegsanayno inaynu magacaabi karno waaye ma magacaabi karnaa hadda kan waxaynu leenahay angle-kii maadaama teetada ay tan tahay opposite-kii adjacent-kii hypotenuse kana angle-kii waa kane opposite-kii adjacent-kii iyo hypotenuse waayahay inta hadaynu awood u yeelanay waxaynu soo ogaanay awalna soo sheegnay ratio-yinka waxaynu ku helayno sinka iyo coska iyo tanka waayahay kan hadaynu ka bilowno marka su'aasha koobaad waxaynu dhahaynaa sin theta maxaa lagu heli jiray sin theta waxaa lagu heli jiray opposite-ka oo loo qaybiyay hypotenuse-ka good waayahay sin theta muxuu inoo yahay marka waxaynu ku helaynaa opposite-ka maxaynu haysanaa waa 3 oo loo qaybiyay adjacent hypotenuse-kina waa 5 that's that waayahay waxay noo soo haray cos theta maxaan ku helaynaa asaga cos theta waxaanu leenahay waa adjacent-ga waa deriska oo loo qaybiyay hypotenuse-ka waayahay cos theta maxaynu ku dhahaynaa asaga adjacent maxaa inoo ah 4 baa inoo ah hypotenuse maxaa inoo ah 5 baa inoo ah waayahay tan theta maxaan dhahaynaa markaan tan theta asagu muxuu ahaa opposite-ka oo loo qaybiyay waxa kale yahay adjacent-ga soo saamayn waynu soo gaabinaynaa waayahay tan theta markaa muxuu inoo leeyahay markaa tan theta wuxuu inoo leeyahay opposite maxaa inoo ah mar walba 3 baa inoo ah adjacent-na maxaa inoo ah waxa kale yahay 4 baa inoo ah halkaas in ugu bini example labaad baa ku soo haray example labaad waxa lagu weydiiyay inaynu soo saarno qiimayaasha aynu qorno coska iyo sinka iyo tanka waayahay sin theta aynu ka bilaabaynaa mar walba sin theta hadaynu ka bilowno muxuu ahaa opposite-ka oo loo qaybiyay waxa kale yahay hypotenuse-ka good sin theta muxuu ahaa marka sin theta wuxuu inoo la ekaa opposite-ka maxaynu haysanaa opposite-ku waa kan angle-kii maanta opposite-kii meeyi waa kan angle-kii maadaama kan uu yahay waa 8 oo loo qaybiyay hypotenuse-ka waa 10 haddaan isu qaybino waa 4 divided by 5 good waayahay cos theta aynu soo qaadanayna maanta cos theta waa maxay muxuu ahaa opposite-ka hadduu kan yahay waa adjacent oo loo qaybiyay hypotenuse waayahay adjacent-geena maanta muxuu yahay adjacent-geena maanta waa 6 hypotenuse-kana waa 10 isma bedelo isu soo qaybi waa 3 divided by 5 good halka markaa marayna waxa kale yahay tanka aan soo qaadana marka tan theta muxuu inoo ahaa tan theta wuxuu inoo ahaa opposite-ka hadaa xasuusatid oo loo qaybiyo waxa kale yiraahdo hypotenuse-ka waayahay tan theta maxaynu dhahaynaa maanta wuxuu inoo leeyahay tan theta wuxuu inoo leeyahay opposite maxaa inoo ah maanta 8-ka inoo ahaa oo loo qaybiyay opposite-ka sorry halka aan bedelo opposite-ka oo loo qaybiyay adjacent-ga baynu dhahaynaa adjacent-ga halka opposite-ka loo qaybiyay adjacent waayahay opposite-ka loo qaybiyay adjacent opposite maanta maxaa inoo ah marka opposite waxa inoo ah 8 baa inoo ah adjacent-na maxaa inoo ah 6 baa inoo ah sidaa daraadeed waxa inoo la mid ah isu qaybi halka hadaynu isu qaybino waa 4 divided by 3 intaas baynu marka caawa aynu ku soo gaabinaa casharka hadii la haydno wixii ka damar dib baynu kaga dari doonaa